Soomaaliyeed wadada loogu dhigo sas loo daadiya nacala aydiina nacala sheedan ku yaale wiil daayira loo gowracay abi maanta si loo qanciyo loo soo dhaweeyo qoorta looga jaray dhiigiisana badda loogu daadiyay sawirna waa ku dulgalay waa taariikh sugan qoran aad ogtahay maqashay aragtay kaaga darane wiilkan maanta la gowracay ee abi loo gowracay waa wiil uu madaxweynaha adeer u yahay waa wiil jufa ahaan madaxweynaha jufada ugu hooseeya beeshiis kala soo jeeda waa wiil uu adeer u yahay dadka iyo Soomaalina ay isaga dhow yihiin haddana maanta abiya hadiyad looga dhigo ninka abiya ee amxaarka waa qanci waay qanci burhaantaada ay tusaaleeyay wax kasta loo sameeyay haddii loo xiro wadada dadka loo kala xiray ganacsiga loo xiray airport lagu soo dhaweeyay loo heesay loo baraanburay shirib loo akhriyay ama loo tiriyay in adeer hata la yiri ya haddii bagaranaysa heshiiskii badda loo saxiixay waa qanci waay leedi igey dhiig badda ku daadanaya tus sawirna ku galaal yirmina markaas aamini kara inaa adiga daacad tahay oo aad hoggaansan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka ee ku dawaalanay xeebta ee iska damaashaaday markay arkeen calan Itoobiyaan iyo ciidamo iyo wax un isdaba orday hal mar ay afka furteen abi down tuug badeenu iib maaha ba afkoodii laga reebi waay وضع واحد أخي حبضها الله لدعي بم 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 عرورة صوماليات اي حيبتا اللي يدو اي اسكالها هايين كو تماشا داي كليا نكا انو صور كو قلب الى على مدحوينو خوري مدحا قوين كاري كو دفتين ويلكا صوماليات كدي با صور روغا قادي بديو ديق له بدي او ديق لها صور روغا قادي خدمو عوني كرو داو عراري waxbuu fahmo wuu cararay kuma aamini karin oo qaadaan waa ka shakiyo yiri waa cararay ugu marka waxa loo dilay wiilka Soomaaliga ah waa abi down iyo badan iibma hadalkaas kun jeer baa madaxweynaha agtiisa iyo hortiisa laga dhahay waliba dhaqaalo ku bixinayay in sida la yiraahdo maanta dhaqaalo kuma bixin xataa ka dhaaf inuu dhaho lama dhihi karo dhaxabadu adeegsad bum 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 dhalinyaradii carruurtu wuxuu ku shubay buu u dilay maanta sababtu maxay waayo wax aan raali laga ahayn oo suuragal ahayn inuu wado uu ogsoon yahay marka inuu qasbado oo dadku u laayo oo ku qasban yahay wax dhacayaan ku sheegaya ma aha waxa abaabulinay iyo waxa maqlama waa waxa aragto waay albaabka dulinimada hadda ma ina wajahdo yar ma u furmaa albaabkaas albaabka dulinimada weyn uu ku furmaa oo soo dhuubtaa gadaal oo ka soo yaraada aduu markii dambe ku la qaado maanta albaabka dulinimada la galay dadka Soomaaliyeed dulinimadaas aan rabaa in lagu xareeyo waxa leeyahay marka hal laga digtoonaado kuwa farku tiriska ah ama dhalinyarada kooban ee maanta ka falceliyay dulinimada iyo dulaysiga loogu keenay caasimadii Soomaaliya iyo badii leedo ee diiday ee u dhintay ama u dhaawacmay ama loo argagax galiyay waxa leeyahay horta waxaad geesiyaal Soomaaliyeed ku dayashaana mudan tihiin go'aankiini sanad ka hor aad isla gaartay madaxweynaha inaad ku taagnaataan waa sharaf iyo izzi karaam wiilka Soomaaliyeed ee loo gowracay ninka loo keenay waxa leeyahay cadaalad ha la siiyo dawladda cadaalad ha siiso dadkiisa cadaalad ha u raadiyaan mucaaradka arrintan ha ka hadlaan dadka shacabka Soomaaliyeed cadaaladasna ha ka raadiyaan tan labaad waxaa loo dilay kartaro waxaa lagu dilay biyihiisa iyo waqtigiisa asoo raaxa ku qaadanaya nin ajnabi ah dartii hadal u dhibsanaya loo dilay wuxuu dhahayna والدفاع بدين ومقدس إيب مع بدين وجيسي وأسكري خرنك Soomaaliya ka bax mid la mid weeyaan wuxuu baahan marka in la maamuuso la darajeeyo waliba waxaan codsalaha aniga shakhsiyan in xeebtan liido oo aan magaceedo fahmaynin in wiilka Soomaaliyeed ee lagu dilay sida xaq darrada ah loogu dilay soo dalkiisa iyo xuquuqdiisa difaacanayo oo hadlaaya si xor ah loo dilay in isaga loogu magac daro codsanayna xeebtaas
wiilkaas soomaaliyeed magaciisa in noogula xaro taalana looga dhiso laguna abaalmariyo siduu qaranka u difaaco waa sidii lagula ballamay ninkaa ma beenin iyo kuwo badan oo meesha dhibaato kusoo gaarta ku kala cararay gabagabadii hadalkeyga marka mar kasta haddaa isku daydo soomaalida in aad ku qancisid maqooninta awoodda nin amxaara inaad ula timaado weligeed ma hirgelin kuwaa shala keenay waa ku hingoobeen waa ogsoon tahay adaa sheegay kuwii hore inay ku hingoobeen oo laga dhigay adigana maanta adigii ogaa inaad keensato oo dadka aad ku disho ama isku daydo kuwo kale inay kuu sanduleeyaan ma socon doonaan waa waxaa ogsoon tahay isaga amxaarkan wuxuu og yahay soomaalidu in iska dawareeg inay tahay maanta inta berina halkaa inay tahay oo isku kaa haleyn karin waa ogsoon yahay waana sababaha uu dhiigga gacmaha kugu geliyay maanta oo wiilkaaga aa u dishi weligiis kuuma joogi karo ballantii uu ku qaaday hortaa raguu ballan u qaaday amxaar ee soomaali ah waa kusii hayn waayo adigana kuguma hayn karo ulajeedadiisu waa badda iyo soomaalida oo kale ququban waxaa ku leeyahay marka ilaah baa kaa cafin kara dhiigga horta dadka soomaaliyeed inay kaa cafinayaan u malayn maayo sidaa u qastay hal sano oo aad uga qayli siisay maanta neekiya inaad dhahdo luxa dabada dhahdo boodbooda qorax kuleelkan inaad dhahdo dhiiggana aad kasii daadiso wax la filaayay maanta oo la qiyaasi kara ma ah laakiin anigu dad badan way la yaabanaayeen waa qabay waxaan rawaayad inay tahay dadka lagu cayaarayo berrina meelka laga soo jeesan doono oo loo dili karo waa aaminsanaa waan ogaa dad badan oo ila yaabanaya waxaa leeyahay horta hadda gacantaa ku haysataan waxaan hubaa marka wax ka weyn oo ka falxun inuu la imaanayo haddii uu arki waayo falcelin iyo dareenkiina wax kasta waa ka filin kartiin dareenkiina intuu la egiyo dhaqaaqaya qof kasta oo siyaasi ah oo dadka ku xadgudbiyay dalka iyo shacbiga in layska qabto way habboonta ha layska qabto hana loo istaago waxa la saxiixay ee badda ku saabsan ee annaga aanan ogeyn mas-uul noogama aha shaqo iyo shaqo kuma lihin cid aan u dirsanna baddeena inay kula heshiisa maarana ma jirto wax ay dadku si babliga u ogeynna ma dhici doonaan sidaa unbaa laisugu dhaganaan doona ogaada somalilan wixii lagu diiday wax la mida inaad meeshaan la imaato oo aan kugu sacbino habarteedii ka tahay habeenna ma dhacayso maalinna ma dhacayso ku jiif kusoo toos soomaalida wacyigaas waa ka gudubtay iyo inaad ku beer laxawsato aragti qabiil iyo iska dawareeg inaa lillahi wa inaa ilaa raajicuun mar kale waxaan tacsi u diraya ummad soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed qaranka soomaaliya